ka faa'iideyso firaaqadaada sida aan la socono waxaa jira xanuun lagu magacaabo corona oo qasbay in badanaa dadku ay guryahooda joogaan iyaga oo ka baaqsanaya hawl maalmeedkooda waxbarasho ganacsi iyo danaha kale ee maalinlaha ah dadka ugu badan ee uu saameynta ku yeeshay waa dhalinyarada gaar ahaan ardayda dugsiyada iyo jaamacadaha oo gelin oo dhan ku qaadan jiray goobaha waxbarashada laakiin hadda laga yaabay in waqtigaasi ay guryaha joogaan haddaba waqtiga intaas la eg waxaa muhiim ah in looga faa'iideysto waxyaabo kale oo qofku uu ka helayo faa'iido adduun iyo mid aakhiraba waxaa halkan si kooban kuugu soo gudbinayaa siyaabaha ay suurtagalka tahay in looga faa'iideysto waqtiga firaaqada kow iska yaray adeegsiga badan ee baraha bulshada badanaa waxa lagu baahiyo baraha bulshada ma ahan wax sax ah taas beddelkeeda waxaad ka faa'iideysan kartaa inaad barato koorsooyin xirfadeed ama luuqadeed oo free ah adiga oo booqanaya website-yada lacag la'aanta ah labo ku raaxayso akhriska haddii aad tahay arday waxaad akhrisan kartaa duruustaada sidoo kale buugaag aad ka heli karto cilmi dhaxalgal ah waxaa kaloo aad baran kartaa koorsooyin gaagaaban oo ah sida wax loo qoro farqurxinta cunto karinta iyo cilaansaarka taasi waxa ay kaa saacidi kartaa in aadan dareemin caajis inta aad guriga joogto saddex ha isbarin hurdada badan intii aad hurdi lahayd waqti dheer wax ka qabo howlaha guriga sida nadaafadda dayactirka iyo waxyaabaha kale ee la midka ah afar baro caadooyin cusub isku day inaad wax ka beddesho dhaqan maalmeedkaaga sida inaad isku mashquuliso inaad qorto buug maalmahaagii nolosha inaad qorto qorshahaaga nolosha inaad dib u xifdiso quraanka ama qayb ka mid ah inaad xifdiso kitaab yar oo matni ah iyo inaad naftaada barto inaad u soo kacdo salaatuleelka haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer garee ama koobi linkiga taabo mahadsanid